xilli muddooyinkii ugu dambeysay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmarayay weerar kooban ururka Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ciidamada xoogga dalka oo isugu jira boolis, nabad sugid iyo sidoo kale military ay u jihaysteen deegaanada ay ku sugeen ururka Al-Shabaab. ciidamadan howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab waxa qayb ka ah ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxaana maanta iyo maalmihii ugu dambeeyba guud ahaan gobolku uu galayay marxalad dagaal kaas oo lagu wajahayo goobaha kooban ee ku sugeen maleeshiyada Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanada kooban ee weerarada ka soo qaadaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Ronaldo Bikirwa taliyaha ciidamada guutada 18aad ee AMISOM Shabeellada Hoose ku sugan oo la hadlay telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka saacidi doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Kano Ronald Bikirwa. I'm the commander of PT-18 AMISOM. Yesterday at around 6 p.m. isku soo wada duuduuba muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaan gobolku ayaa waxa laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan kaas oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo ciidamada midowga Afrika ee ku wada sugan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdi Fataax Tawakkal Cali Cumar, telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Shabeellaha Hoose.